Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada. Waxaan soo qaadan doonaa qayb ka mid ah xigmooyinkii Imaam Al-Shaafici, Allah u naxariistay. Imaam Al-Shaafici waa imaam ka mid ah imaamada waaweyn ee muslimiinta. Inta aanan muuqaalka u gudagelin, ha ilaawin inaad nagu soo biirto oo ka mid noqotid saaxiibada aan halkan ku saaxiibnay. Muuqaalka inoo la garee, la wadaag saaxiibadaada, qaybta hoose ka mid inuu reeb wixii fikirkaaga ama talo iyo tusaale mahadsanidin. Imaam Al-Shaafici waxa uu yidhi in dadka la qanciyaa waa arrin aad u dhib badan oo aan la gaari karin, ee had walba hamoogaan waxa ay ku hagaagayso diintaada, sababtoo ah dadaal kasta oo aad ku bixisid kuma raaligelin karaysid dadka. Qofkii xadiiska bartaa wuxuu helaa daliil adag, qofkii naxwaha bartaana waa laga heebaystaa, qofkii carabiga bartaana waxaa hagaaga dabeecadiisa, qofkii xisaabta bartaana waxaa hagaaga ra'yigiisa, qofkii aan nafsadiisa damaanad qaadina aqoontiisa waxba uma tarayso. Waxaas oo dhanna waxaa kaa deeqa oo madax u ah alle ka cabsiga. Imaam Shaafici wuxuu kaloo yidhi, haddii la guto wixii waajibaadka ahaa ee uu alle ku saaray, kadib waxa ugu qiimaha badan ee alle loogu dhowaadaa waa waxbarashada. Waxa uu kaloo yidhi, waxbarashadu waxay ka qiimo badan tahay salaadaha sunnada ah. Waxa uu kaloo yidhi, qofkii hal mas'alo oo uu gafay dadku ay ku qoslaan, weligiis ma hilmaamayo mas'aladaas. Waxa uu kaloo yidhi, qofkii yimaada goobaha waxbarashada isagoo aan wadan qad iyo qalin, waxa uu la mid yahay qof yimid goobta badarka lagu shido isagoo aan wadan qamadigii loo shiidi lahaa. Waxa uu kaloo yidhi, hadal kaalmihiisu waa inaad u badnaataa aamusnaanta, cilmi kaalmihiisna waa inaad u badnaataa fikir. Wuxuu kaloo yidhi, qofkii cilmi aan daliil lahayn raadiyey wuxuu la mid yahay qof habeen qoryo gurtay. Wuxuu soo qaadan karaa qorihiisa isagoo kala ogeyn inuu mas ku jiro oo uu qaniini doono. Wuxuu kaloo yidhi, darajada culimadu waa alle ka cabsi, taajkooduna waa dabeecad wanaagga, quruxdooduna waa deeqsinimada. Wuxuu kaloo yidhi, qofkii aan jeclayn cilmiga wax faa'iido ma lahan, ee iska ilaali weligaa inaad la saaxiibtid ama aad jeclaatid qofkaas. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax uun ka faa'iiday. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.